sideedaba waxaa jirta oo kale kuu sheegaya saxafi waxaan kuu sheegaya dhacdada meeshan ka dhacday ma aha wax la sahashan karo ma aha sidaa uu sheegay taliyaha saldhigga ee Adashiina oo markii hore markii loo sheegay sheekada yimid mooyaane cid kale oo dawladda oo nimankan ismaadiye baan qabaano haddaad wasiir garaacdo imika tiraa warkaas xaalad ka dhacay telefoonka ma ka qaban maayo celiye askartaasina laga celiyay waxaan u dhabagalnay waxaan u soo galnay halka yar dooxa afkiisa waxaan dhageysanaynay markaa inaan wax sira ka helno wixii sirahana waxaan ka helnay $20,000 noo dir iyo hawshiina dhamaystir yaa lahaa lacagta noo dir lacagta waxa lahaa nimankii gubayay ee ahaa 30 ninna kama yaraan intay meesha gubaysay dadka markaa waxaanu aragnay waxaanu 30 nin inay markaa leeyahay $20,000 noo dir ka warramaynaa dhacdo ka dhacday dooxii xeedho oo haddii albayar nagu dhacday dhacdadaas waxaa naloo keenay meydad la sido oo dooxii aanu ka cabbaynay lagu aasay yaa dadka yagii seenta ka arkayna nin walba beel baa lagu hor joogto ciidan baa ilaalinayay waxaannu baaq u diraynaa oonu halkan baaq uga diraynaa oonu khayra uga diraynaa dawladda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka haddii alla badankeega maamulka Soomaaliland oo dhan waxaanu ogaysay waxaanu mid anigu shantii iyo barkii anoo shifakay dabeedna askar heegana waxa iga hor yimid dadkii ay soo celiyeen ayaa iga hor yimid maxaa waxay yidhahdeen dooxii lama marayo ciidan baa taagan markaa 5 baabuur oo 3 dibadda joogaan 2 gudaha ku jiraan kolka la kaabari aan ka arkay ayaa taagnaa ciidanku halka aad arkaysaan iyo ilaa kaynta dambe toban talaabo isku jira labada qarbana way taageen dabadeed halkaasaa la iga celiyay kalid baan u aragnaa nimanka hadday dawladdu ka qaban weydo ilaa taliyaha buu yimisalay haddana iyadoo haddaba gashay ilaa dawladu ahay soo sheegaa ka mid ahaa waxaan la hadlay wasaaradda caafimaadka waan la hadlay waan ku imananaa bay yidhaahdeen nooma iman ilaa saldhigga Adashiina way noo yimaadeen wax halkaa way arkeen wax ka qabteen ma jirto ilaa xalay ilaa maanta saasa lagu taagnayd meesha iyadaasi waxaan ku leeyahay dooxii geedbeeb la tegayey ee biyaha laga cabayay halkaa hargeysa ka cabaysay xanuunkaasa laga keeno waxaasa laga keeno lafaha madaxii may gubila way ayad bay kaga tegey meesha intaa leeg baa u nahay carruur baa u leenahay maxay dad yaryar baa jooga dooxii laga cabayay hargeysa waxaa loo keeneen wasaaradda caafimaadka fogada waxaa leeyahay xanuun bay loo keeneen marka labaad halkaa xeedha waa meel laga cabo oo midkii halkii laga cabayay carruurta ka cabaysay xeedha ka cabaysay oo halkaa cagaf taagan tahay ayaa laga cabo ceel ah halkaa meydkaa la keenay dowladda dadkii dowladda maaha waa wax laga qabtaa weeye haddii laga qaban waayana adoon nahay degaankii weeyaan askar baa ilaalinaysay markii ugu horreysay ee gaari xaaba lagu sida ayaa yimi gaarigii markuu caddaanka dhigay xaabadii ayuu kadib ambalaas baa meydka lagu siday laga dajiyay meydkii la garab dhigay dabkii markuu baxay baatrool baa lagu gubayay xaabada ma cadayn karaan laakiin 11 habeenimo askartu ka rawaxday iyo dadkeena shacibkeena gubay dhaqaatiirina way ku jirtay daraad bay sheekadu ahayd hadday ahaydna baabuur fara badan ayay ahaayeen dawlad bay ahaayeen halkaas dooxii xeeray keeneen weynigu halkaas ku gubeen meyd waka caafimaad ma jiro waad arkaysaa horena xeedho looma aqoonsanayn waxa nagu dhacay in annagoo halkan joogna la keenay meyd dabeetana halkan iyo xaabo lagu gubay dabeetana qofkii horreeyay yimid qori lagu qabtay la soo eriyay uu noo soo warramay dooxii waxbaa ka dhacay qori lagu qabtay war waxaas ma dhacayaan meed waalan tahay haddana labaanu isku soo raacnay qori lagu qabtay waanu noqonnay haddana laba kale aysan soo raacay qori lagu qabtay waanu noqonnay dabeeto waxay nagu gaadhay 12 intaanu is urursanay markii dambe aanu soo wada urursanay ayay wixii ka sii gaarsiiyeen aakhirkiina naxashii oo kulul bay nooga yaaceen dabeeto aroortii waxaanu la hadalay qolada caafimaadka ayaanu la hadalay way noo iman waayeen saldhigga Adashiina aanu la hadalay saldhigga Adashiina noo yimid wuu la hadlay way noo yimaadeen dabeetana kuwii caafimaadka markii aanu tusnay meeshii way ka dideen way u dhawaan waayeen waxay nagu yiraahdeen waxaanu dabeetana waxaan sidee loo oranayaa maati iyo carruur ayaa meesha noo joogtay